يور هذا هذا ايه دوار خصوصا بليانين أورد واقف meelaha golayaasha inta badan laga kaftamayo anna waxaan nidhi sharcigu meesha ku joogaay bal dhaliisha noo sheega soo bedelayna suurtagal maaha oo aduu horta nin reer bucaabaanay ma garanaysa oo cibraan oo reer xarbiya marka walada habeen aad baan isku jafnaayo yaadeer waxaan ku isbedelna mahayna baan ku uriye caqli ma habti soo bedelay bal horta inoo sheega baan ku waxaad laba sano diidanayeen nimankan hore waa barbasiyadii waxaan qoodii horena maaha annagana maaha waa maalintii muuse kursiga fuulay khilaafkii bilaabmay ayaa tallaabadii la qaadaba dee loogu gabanaya mogtahay wishakida loogu gabanay hore annagaa imikana loogu gabanaya wixii dambe dhacaa loogu gaban doona waxaweye ninka 5 sanadood waxaa la bilaabay inaan dhuuqii qaylo laga diin mogta oo aanay waxba socon ba waxba socon laakiin iyaguna imika siyaasadda way fahmeen oo haddii maanta wasiir ka hadlayay wuxuu shaqada doorasho qura maaha anigu doorashadii waa diyaarinay lacagtiina waa diyaarinay halkaasaanu dhignay horumar iyo dhisme iyo dal baanu u jeesanaynaa 2 sanadood baa naga lumisay rabaayan maalin dambe naga luminaysa maalintaa diyaartiina jiraa doorashaan doonaynaa waa naga diyaar anaga laakiin dib ugu habsaami mayno kana shiri mayno idinlana hadli mayno wax hore wadi mayno waxaana tiraa intaa baaq bixisaan doorashada diyaar baa noo nahay dadkaasaan adeer waxay u baahan yihiin nimankan waa karbaashka horta soo bixi maayaan maca haddii doorasha dhacdo ayn meesha inagu ka tagno ma jirto meel ay ka soo baxayaan nimankan ma jiro de waa xisbiga waa fashil de waa xisbi qabiil garanaysa way baaqay khalaas wajaba qabaan baadsuwaayday isaga marka dadka kale sometimes waxaa sheegaysaa meelo kale laga wadaa iyo cid kale waa farmaajo u adeegaya siyaasadooda faysal kan eeg marba cidu doona la soo kulmayo aan meesha dabada hayaa la yidhi inta maaragtay xaggaas soo toosaysa meeshan iyo hor u socodne celiya hortaagnaada marka celinba waa jecel ay aad baan adeer ku salaamaya oo ku saabalayna oo kula soo hadlayla markaygu waa kaas waxaan leeyahay ugu bishaarinayaa dhaartaasaan ku sugnaanayaa qof weyn baan ahay wixii dee qof la dhaariyey wixii xaqa ee cadaalada un baan qabanaynaa haddii alla ka